gudoomiyaha daryeelka haweenka caruurta iyo waayeelada oo afka qalaad lagu yiraahdo Women, Children and Elders Aid Organization oo fadhigoodu uu yahay dalka UK gaar ahaan magaalada London ayaa Muqdisho u timid in dadka danyarta ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ay gudoonsiiso deeqa kala duwan oo ay soo dhiibeen gabdha muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa waxaana barnaamijkan caawinaad ah kala qayb galayay xogeeyaha ururkan Caasha Cabdi Cumar. gurigan waxa ku nool 5 caruur agoona waxa uu ku yaalaa xaafad ka tirsan Darkenley waxa ay ku nool yihiin nolol aad u adag oo aad ka dareemi karto muuqaalkan guryahan oo ah halka ay ku nool yihiin aragtihan waxa uu ka duwan yahay muuqaalka guryaha ay degan yihiin dadka caadiga ah ee ku nool magaalada Muqdisho. aniga Saciid Sheekh Xasan Zubeer maanta waxaan dhex taaganahay alxamdulillah 5 caruur ee agoonta ahayd ee ay ka faala qaadeen walaasheen Caaliye iyo ano Zubeer 5 caruur meesha ay ku nool yihiin waa halkan 3 gabdhood iyo 2 wiil oo hooyo ah labadaba aan lahayn qolkan aan dhex taaganahay u jeedaan hooyo waxaan ku weydiiyay su'aal ah cunuga adiga aad dhashay ma u qoori lahayd inuu joodariga noocaan ku seexdo armaajan ay u noqoto xarigan meesha ka laalaado joodarigan kale inta yaan wiilasha mid kamid ayaa ku seexda marka insha Allah taala waxaan u mahad celinaa gabdhihii walaalahay ee igu dhiirigeliyay inaan faraad u soo galo inaan noloshooda wax ka bedelno oo ay ugu horeyso walaashay Ifraax Yuusuf football duca jecel teamkeeda reer reer al-mutahabat fillah reer Mareykan gurigan waxaa nolosha ka bedelayo teamka al-mutahabat fillah iyo reer Nimca Inarooro iyo reer daryeel hooyo isku jiro wada jir ah Nafisa oo Sweden degan Jamila oo Ingiriiska degan iyo inta kale Mareykanka degan qiimihi ugu soo talagasheen wax badan ay ka bedelay maanta waano maxay ahayd isku soo noqo dambe dhamaan walaalaha qolka jiro waa idin salaamay alxamdulillah meelan ka hadalna ma joogno meelan ka oynaan joognaa insha Allah taala markaan wax ka bedelnaan ila soo hadli doonaa assalaamu alaykum waraxmatullahi gabdha Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin Saciid Sheekh Xasan Zubeer iyo Caasha Cabdi Cumar Samaya iyo gabdha kale oo ku nool qurbaha ayaa go'aansaday in ay wax ka bedelaan muuqaalka gurigan oo ah sida aad hadda u jeedaan. goobtan waa meel lagu iibiyo qalabka guryaha waxaana gabdhahan ay u yimaadeen in qalabka guryaha ay u iibiyaan caruurta agoonta ah ee aan idiin soo gudbinay muuqaalkiisa oo runtii ahaa mid aan wanaagsaneyn waxaana ay doonayaan in ay u iibiyaan alaabtii ay ugu talagaleen in ay guriga u dhigaan sida sariiraha iyo armaajooyinka si uu guriga u noqdo muuqaal ahaan mid lamida guryaha ay degan yihiin dadka caadiga ah. gabagabadii waxaa suuragal noqotay in la isku fahmo qiimaha alaabtii la doonayay in loo gado ama loo iibiyo caruurtii agoonta ahayd waxaana taas ay keentay in alaabtii loo soo raro waxaana hore loo sii maray qalabkii kale ee qurxinta guriga ka harsanaa xilli dambe oo habeena ayaa nimaana guriga oo durbadiiba waxaa la bilaabay in alaabtii la dhigo guriga sida aad u jeedaan waxaa socota shaqo tabarucaad ah oo ku aadan qurxinta guriga ay degan yihiin caruurtan agoonta ah oo aan weli helin wax gurmad ah marka laga reebo caawinaada ay u sameynayaan gabdho Soomaaliyeed oo runtii ka damqaday dhibaatada ay ku nool yihiin caruurtan. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم لما قبله النوائد السلام يا بعد السلام ساكي وهيد سنين تاريخنا سدحي طبنك أغسطس ilmihii agoonta ahay gurigoodii oo aan soo ballan qaadnay ballan ilaaha iska leh ilaahay baan ugu guulay alxamdulillah saaka nadaafadii aan galnay nadaafada kadib shoobinaan aadnay saaka sida u baxnay hadda caawa cishii ah imaanay alaabtii hadda xirxirnay qeyb aan noo sii harsan daahiyadii iyo armaajo kale iyo sariiro kale noo harsan insha Allah khamiista dhameystiri doonaa waxaan meesha uga mahad celinaa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow walaasha Ifraax duca jecel group al-mutahabat fillah iyo reer daryeel hooyo dhamaantood oo qayb weyn ka qaatay special reer Mareykan iyo reer Sweden iyo reer UK ayaa ka macnaha qayb libax ka qaatay waa idinka mahad celinaya ma sha Allah ilmihiina dhulka caawa ka kicin ay happy inay caawa sariir noo jiifaan wax barashadoodan aan hore u ka faala qaadnay inta noo hartana waa isla joognaa insha Allah gurihiina Allah idin geliyo hortiin iyo hareerihiina khayr Allah dhigo jazakallahu khayran wa jazaa dhamaantiin shaqada ay qabteen ururkan ma ahan mid la